الرحيم. تليها ciidamada booliiska ee dawladda federaalka General Maxamed Xasan Xaamud, taliye xigeenka Bashiir Cabdi Ameeriko, madaxa hogaamada ee saraakiisha janamada la socday waqtiga ballaaran aad hogaaminaysid. waxaa taliya noo sharaf ah inaad maanta aanu kugu soo dhaweyno garoonka caalamiga ee Kismaayo Airport. waxaan sharaf runtii weyn oo ballaaran noo ah waqtigan ballaaran oo aan muddada dheer sugaynay ee saraakiishii hogaaminta booliiska Soomaaliyeed oo aan isleenahay dalabkii aad naga ajiibtay muddada dheer inkastoo aad gobollo kale safar ku maraysay waxaan leenahay waan kaaga mahadcelinaynaa. awalan waxaan ku leenahay ku soo dhawow dalkaagii ciidankaagii booliiska Soomaaliyeed ee halkan jooga. waxaanuna saakay diyaar u nahay barnaamij ballaaran oo in muddo ah aanu ka shaqaynaynay oo ahaa difcaddii koowaad ee tababarka ciidamada Jubbaland, kaasoo qaybtiisii koowaad aan saaka dugsigii ku diyaarinay, rajaynayno inaad noo furto tababarkii isla markaas annagoo kaaga mahadcelinayno deeqdii aad noo soo dirtay iyaduna dugsiga dhex taalla si official saaka inaan ku wareejiso Jubbaland booliskeeda. sidoo kale waxaan rabnaa in ay astaamaha booliiska ay leeyihiin rugaha ay ka shaqeeyaan iyadana inaan maanta ku soo wareejino. waxaan isleeyahay waa kulushiin safar baana ku timid. waxaan jecelahay bacdama xilligu aad u kulul yahay inaan horey kaaga bilaawno programkaagii isla maanta. programka markuu dhamaado State House-ka ayaan u gudbi doonaa. halkaas madaxweyne ku-xigeenka iyo kusimaha hadda ayaa inagu sugaya. dabadeedna waxaynu kala tegi doonaa markaynu programka madaxtooyada iyo qadadiiba dhamaato meelaha aynu kala degi lahayn. wixii ka dambeeyana programkaagii baanu diyaar u nahay. waxaan jecelahay inaad labadaada kelmadood aan kugu soo dhaweeyo mikrofoonka intaynu airportka ka tageen. ku soo dhawow General. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمات سيهاي وزير محمد رسول درويش إيو سراكيش السرع عيدا كبوليسكا إيو عيدا ما كان حوق الدلك كل الدول. هل كان مانت نقص دوي وحشرف وين نوعه إن المانت أن كسر دقنه أنا جو هجامنا وفد بلارن وككوبان لمان سراكيش هجامده ويل إيو قبله تلي حجينك جنرال بشير. runtii waxyaalaha u soconana waxa waaye maadaama xaaladda lagu jiro ay tahay xaalad loo baahan yahay in ciidanka booliiska gaar ahaan oo u adeega ummadda Soomaaliyeed sidii loo tayeyn lahaa ama loo diyaarin lahaa ama loogu warqabi lahaa ayaan sida aad la socotaanba bariyahan waataan safar ku marnay gobollo kala duwan maamul goboleedyo kala duwan sida Puntland iyo Galmudug. marka maantana waxaa noo suurtagashay inaan soo gaarno magaalada Kismaayo oo aan ilaa berita aan joogdan haddii ilaahay idmo. howlahan u soconana kulley sida uu wasiirku noo sheegay waxa ugu horeyn doono kulley tababarkii furidiisii iyo wixii kaloo arrimo ah ku saabsan deeq aan soo gaarsiinay booliiska Jubbaland iyo sidaas oo kale in aan soo aragno dhammaan xarumihii booliiska uu ku lahaa gobolkan gaar ahaan magaalada Kismaayo iyo inaan soo dhaxgalno bulshadeena aan tusno waayo bulshada waa booliiska booliiskana waa bulshada. sloganka aan wadna kaas waaye. waxaan rajaynaynaa inaanan meel iska fadhinina waxaan qabsan karin annaka aan qabsanno waxaynan qabsan karinna dawladaha kale ee walaalaha ah aan la kaashano. marka saas ayay inoo tahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.